barasaabka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay barasaab ku-xigeenka cusub ee gobolkan loo soo magacaabay iyo barasaab ku-xigeenkii hore ee uu bedelay xil wareejintani oo ka dhacday hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Salal ee magaalada Saylac ayaa waxa ka soo qayb galay aduqa degmada Saylac qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi isku duwayaal iyo taliyaha ciidanka qaybta booliska ee gobolka Salal xil wareejintani ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay duqa degmada Saylac mudane Sacad Daahir Cige maanta waxaanu xilkii u kala wareejinaynaa gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka Salal Cabdulqaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka loo soo igmaday Mr. Macaane iyaanu xilka waanta u kala wareejinaynaa kulli xilkuna in wax la kala bedelay iyo iska sunnaha dowladnimo weey oo qof cusub oo hawlaha dawladda dardar gelinaya in la soo magacaabay waa iska sunnaha dawladnimo waxaan leenahay gudoomiyihii hore gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka waxaan ku sii ducaynaynaa waxaan ku leenahay in badan baad soo shaqaysay gobolka ka soo shaqaysay in badan baad runtii wax badan soo qabatay in badan baad dadaashay dadka gobolka iyo xagga nabadgelyada iyo xagga horumarkaba maantana kulley muxuu ahaayey xukuumaddan maanta oo hogaaminaya mudane Muuse Biix Cabdi ayaa waxay garatay inaad nasato waxaan leenahay kulley waa iska nasani waxaan kugu ducaynaynaa meel ka qayr qabta inuu Ilaahay ku geeyo meel wanaagsan inuu Ilaahay ku geeyana waan kugu sii ducaynaynaa waxaan ku leenahay Ilaahay daa ku nabad yeelo Allah meel wanaagsan ku geeyo gudoomiyaha cusub ee gudoomiyaha cusub gobolka waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye soo dhawow gobolkii Salal soo dhawow degmadii Saylac waan ku soo dhaweynaynaa gobolkaagii waa dadkaagii kulli waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaad wax wanaagsan qaban doonto rajaynaynaa waan ku soo dhaweynaynaa anana waan ku garab taaganahay waan kula shaqaynaynaa hadii la yiraahdo hadiya jeerna waan ku garab taagnaanaynaa wixii kasta oo baahatana diyaar baan kula nahay kulli wada shaqayn wanaagsan waxaan waa xildhibaanadii gobolka iyo isku duwayaashii iyo saraakiishii ciidanka iyo joogay iyaguna waxaan ugu soo kordhay sidoo wasaaradda kalluumaysiga waa Cabdulqaadir waxaan leenahay gudoomiye cusub gudoomiyaha cusub gobolka waxaan leenahay soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa dhanka kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Aadan Cabdillaahi Boorle Waran xafiiskan gobolka inaga oo u kala tirinayna ama u kala wareejinayna labadii gudoomiye ku-xigeenkii hore iyo gudoomiye ku-xigeenka dambe ilaaha samahad kulley waa gudoomiyaha ku-xigeenka hore waa loo sii ducaynayaa in Ilaahay meel fiican uu gaarsiiyo gudoomiye ku-xigeenka cusubna waxaan u rajaynaynaa oo ugu ducaynaynaa in Ilaahay ka dhigo kii isku xidha gobolka dhamaantii isku xidha inuu noqdo hawsha oo loo soo imaday in Ilaahay u fududeeyo ayaan isagana ugu ducaynaynaa kulli labada kelmadood baa meesha yaala gudoomiye ku-xigeenka hore in badan buu nala soo shaqeeyay wax badan buu gobolka joogay wax badan buu doorashooyinkii iyo olihii wax ka qabtay hawlaha hore uu nala soo qabtayna waan ugu mahad celinaynaa maantana waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay meel kale oo fiican sii gaarsiiyo iyo aad baan xil wareejintan sharafta leh labada gudoomiye ku-xigeen ay isku bedelayaan aan u soo dhaweynayaa labada gudoomiye ku-xigeen labaduba anigu macruuf baa naga dhaxaya waqtiyadii aabayaashada shaqaynayeen ayaa shaqaynayay aad baanu isu garanayna marka waxaan leeyahay gudoomiyihii horena Ilaahay meel wanaagsan ha ku gaarsiiyo dhulku taaka ku noqdo gudoomiyaha cusubna walkan baanu leenahay soo dhawow gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa waxaan si fiican soo dhaweynaynaa gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka loo soo magacaabay waxaanan sii salaamaynaynaa saaxiibkaygii hore gudoomiye ku-xigeenkii hore Cabdulqaadir ahaa waxaanan sida ragga kalaba sheegeen ugu ducaynaynaa in Ilaahay xil kale oo cusub uu siiyo xilka Somaliland la xilka qaadis waa iska sunne maalinba nin baa la soo magacaabayaa inna meesha kuma waarayo gudoomiye ku-xigeenka cusubna waxaan leenahay si fiican u soo dhawow waa gobolkaagii hoggaamo cusba wada shaqayn fiican bayna dhex mari doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenkii hore gobolkan Salal mudane Cabdulqaadir Aadan Yuusuf idinkana maanta waxaan idin rajeynayaa tiimkiina cusub barasaab ku-xigeenka sida saaxiibka Macaane Cabdirashiid gudoomiye Mawlid ah nin wanaagsan oo saaxiibkeed barasaab kasta walaalkaas soo raadintay Mawlid ku wanaagsan waana ka dheeriyay
وأنا كي يهون في عين قلب وناج عدوه وهم طلع يعني شقة وناج شقة مرة بوها يا وشقينا يا إن هذا كي عن جارني متكبر عن جاردان بنياه إنجليزية وهالمركي أنا وياك قبل كرنا وقبلنا يه وحكوين هذه سورة لسان وأبوه رئيسه جد كأو مدحون نوبلان قاضي إن هذا مقطع كوسي بلا بدك مدحون نوبلان قاضي جد كوا حلو درا يعني وعرشي حكومة على وضعه لكن إذا كحاتين ما دام إيش أدقن تيم كل بلا بلا إن المقطع من ريج إن شاء الله sidoo kale waxaa isaguna halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey barasaab ku-xigeenka cusub ee gobolka Salel dhawaan loo soo magacaabay mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Hande hore waxaan salaamayaa salaanta muslimka markii xigtana waxa mahad iska leh Ilaahay weynaay waaxidkeena subxaana qaadirkeena inagu caafimaad qabna halkan isku keenay mar labaad waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay wada tashadeen ugu soo magacaabayaan xilkan gobolka gudoomiye ku-xigeenka gobolka ah sida awgeed duruuftiisa awgeed iyo kuleelka jira iyo diyaar garowga ay dhimeydii oo la soo hormariyay oo bisha Ramadaan daraadeed loo soo hormariyay aan si kooban u qabsanay xafladeennii xil wareejinta runtii gudoomiyaha gobolka aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa maayarka gudoomiyaha degmada gudoomiyihii hore degmada Saylax ku-xigeenka xoghayaha taliyaha qaybta isduuyaasha iyo xildhibaanada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib runtii aad baan ugu faraxsanahay original anigoo ah in ninka soo jeeda deegaanka Saylax inaan maanta imaado deegaankaygii dadkaygii in aan maanta dhex joogo oo wixii karaankayga ah ee aan ku soo beerin karo inaan la qabto runtii waa farxad ii gaar ah midda labaad waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiye Mawlid oo ah nin dhalinyaro ah wacyiga la socda nin firfircoon ah iyo maayarka iyo xildhibaanadaba in aan kullay ku qanacsanahay inaan si wanaagsan ula shaqeeyo aad baad u mahadsantihiin hadalka la badin maayo waqti baa la joogaa safar baa soo galnay aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noo soo dhaweyseen gacmaha furan iyo qalbiga furan takaliyan u baahannahay waxa weeyaan ducada in Ilaahay xilka naloo soo igmado nagu asturo anigana kullay waxaad iga falanaysaan wanaag kullay iyo wada shaqayn haddii Ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadal kooban oo mahadnaqa uga soo jeediyey mas'uuliyiintani barasaabka gobolka Salel mudane Mawlid Maxamed Nuur isagoo halkaasina xilkii ugu kala wareejiyay labadani mas'uul runtii maanta waxaa ii sharafa in laba garabkaygii hore iyo garabka cusub maanta ay labadii garab taagay yihiin agtayda alxamdulillah aan maanta halkan xilka ugu kala wareejin doono runtii sharaf ay tahay mas'uuliyiinta halkan joogay ee nagala soo qayb galay xildhibaanada oo maayarka horkacayo isku dawayaasha iyo taliyaha qaybta iyo inta kale ee soo raacdayba runtii Cabdiqaadir muddo ayaan soo wada shaqeynay hagardaamo iyo dib midna mu lahayn wuxuu lahaa siyaasad wanaagsan iyo qalbi fiican saaxiibkii Cabdirashiidna waxaan filayaa sidaa iyo si ka ballaaran isna insha Allah bismillaahi kariim inaan wada shaqeyn doono